waxaynu intii rabbiina garadsiyo ka tilmaami doonaa mowduucaasi ku saabsiisan caaqibatu dulmi waalظaalimiin ama cidhibta dulmiga iyo kuwa daalimiinta ah. ereyga dulm luqada carabeed waxaa lagu yidhaahdaa aljawr wa mujaawasat alxad, ama culammadu sharcan waxay ku tacriifiyeen inuu yahay shayga oo mowdiciisii sharciga ahaa aan la dhigin, wax kasta oo meeshii uu xaq u lahaa sharciyan ama laga kormariyo ama laga hoos dhigo, oo meeshay ahayd in la saaro aan la saarin. haddii meeshuu lahaa la saaro shayga waa cadaalad, haddii nuqsaan ama ziyaada lagu sameeyana waa dulmi. walidaalika dulmigu wuxuu cagsi u yahay cadliga. haddii laga reebo dulmi macnaheedu waxa weeyaan ama cadaalad lagu furay cagsigeeda dulmigana waa laga reebay. yacni nusuusta sheegaysa inaad cadaalad samayso oo dhammi waxay dimnan sheegaysaa fi cilmi lusuul in dulmiguna manhi yahay. haddaynu sidaa u fasirno markaa qur-aanka aayaad aad u tiro badan iyo axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wax tiro badan baa ku soo arooray. bacd alculamaana waxay idhaahdaan asal usuusha ugu waaweyn ka mida shareecada islaamiga, akhlaaqiyaadka islaamiga ayaa alcadlu walixsaan buu ku wareegaa bay yidhaahdaan. wuxuuba waxa la isfaray oo dhammi in allaha yaamuru bilcadli walixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i walmunkar. sida awgeed baa culammada badh waxay yidhaahdaan aayaadka cadaaladda sheegayoo dhami waxay nahyinayaan dulmiga. yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimanakum shanaanu qowmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu litaqwa. rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay kuwa iimaanka laga helay oo sifatu liimaan lahow waxaad noqotaan kuwa ku quma oo isu taaga xaqa alle subxaanahu wa tacaala dartii, kuwa cadaaladda la yimaada. yay idin dhaafinin baa layidhi cadho duulaa u qabtaan inaad cadaalad samayso. yay ku dhaafinen cadho aad duul u qabtaa inaad cadaalad samayso. waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam risaalada loo soo dhibay rusushoo dhammi dee waxay ku salaysnayd in la ilaaliyo cadaaladda. xalaaliya waxaa rasuul ilaahay soo diray iyo waxaa kitaab soo degay oo dhammi ee min alraxmaan alraxiim ka yimi waxaa asal u ah in la cadaalad sameeyo. ilaahayna subxaanahu wa tacaala naftiisuu ka xarimay cid kala daaye. tilka aayaat ullahi natluuha calayka bilxaqi wama allahu yuriidu dulman lilcaalamiin. tani waa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaadkiisii oo laydinku akhrinaya baa la yidhi. ilaahayna subxaanahu wa tacaala dulmi lama rabo caalamka dhammaanteed. in allaha laa yadlimu mihqaala dara. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dulmiyo dhuuricasa in leeg ama waxa ugu yar. wain taku xasanatan yudaacifha, xasana hadday tahayna wuu laablaabaa ama waa tiro badiyaa. wayu'ti min ladunhu ajran cadiima walaa yadlimu rabuka axada waman yacmal min alصaalixaati wahuwa mu'minun falaa yakhaafu dulman walaa hadma. aayaadkaasoo dhammi waxaa rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamayaa min sifaatihi inay ka mid tahay alcadlu, inuu rabbi cadaalad sameeyo, wax dulmiya aanu samaynin. walidaalika waa xadiidu lqudsiga alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa yaa cibaadii innii xaramtu dulm calaa nafsi. waardadow dulmiga naftaydan ka mamnuucay, idinkana waan idinka mamnuucay ee falaa tadaalamuu hays dulminina ba alla leeyahay subxaanahu wa tacaala. idinka dhexdiinnana xaaraan baan ka dhigaye hays dulminina. dulmigu markaa waxaynu naqaanaa shareecadda xagga rabbi ka timi dhammaanteed inuu mamnuuc ku yihi. intaynan cidhibtiisa gaadhin maxaa dulmiyaan isweydiino. culimmadu waxay dhahaan dulmigu 3 qaybood baa loo qaybiyaa. qofka oo naftiisa dulmiya oo ku dulmiya shirki, gaalnimo. aladiina aamanuu
walam yalbisuu iimaanahum bidulm ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun baa ilahay yidhi kuwa iimaanka laga helay ee aan ku dheehinin iimaankaasi dulmi saxaabadu waxay dhaheen ilaahay rasuulkiisiiyo waayuna lam yudlim waa kee kayaga aan dulmi samaynini markaasuu nebigu yihi miyadan maqal alcabdi saalix warkiisii ahaa ina ashirka la dulmun cadiim yaa bunaya laa tushrik biاllaah ina ashirka la dulmun cadiim idan dulmiga koowaadee la reebay waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala xuquuqdiisa lagu xadgudbo xaqa rabbo lagu xadgudbana waxa ugu weyn maxay iyadoo ilaahay subxaanahu wa tacaala loo shirik yeelo cibaadada cid kale lala wadaajiyo isagoo ku abuuray oo ku arsaaqay oo ku caafimaadiyey oo dunida ku keenay oo waxaad cunaysa leh oo kownka dhammaantii iska leh haddana cidaan isaga ahayn inaad u mahadnaqdo caabudo waa mamnuucaadka ugu waaweyn walidalik baa ilaahay wuxuu leeyay waalkaafiruuna hum aalimuun baa ilahay yidhi gaalunbaa dulmi sameeya ama daalimiinta dhabta ahi waa kuwa kaafiriinta abaa rabbi ku tilmaamaya waa xuquuqda ilaahoo la dulmiya waa qaybta koowaad qaybta labaadna waxa weeyaan qofka oo isagu naftiisa dulmiya oo macaasi ku dulmiya macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala dulal badan buu intuu halaagu wuxuu leeyahy wamaa dalamuuna walakin kaanuu anfusahum yadlimuun wamaa dalamahum allahu walakin kaanuu anfusahum yadlimuun ina allaha laa yadlimu nnaasa shay'a walakina annaasa anfusahum yadlimuun waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma yastakfir ilaha yajid ilaha gafuuran raxiima macaasida oo dhan iyo cibaadada rabbee laga tegayo faminhum daalimun linafsihi ilahay uu qur-aanka ku leeyahy waxaa dadka ka mida baa la yidhi midaa daalimun linafsih saabiq bilkhayraat baa ka mida waxaa kaloo ka mida baa ilaahay yidhi daalimun linafsih waa dulmun duuna dulmin qofkii samaynayey siiba dulmiga ku saabsan naftiisa ee ah waajibaadkii shirkiga kuma dhicin laakiin waajibaadkii rabbi faray buu wax ka mida ka tegey ama muxaramaadkii laga manciyey buu wax ka mida ku dhacay iyana waa dulmi qaybta saddexaada dulmigu waa dulmi alcabdi ligayrihi min alcibaad waa qofkaoo dadka kala dulmiya oo xuquuqdooda dulmiya walidalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka caaisha warinaysa waxay leedahay addawaawiinu cinda allahi caza wajalla alaaa diiwaanku ilaahay agtiisa waa saddex diiwaanada wax lagu qoraa ee rabbi hortiisa la keeni doono ee qofka addoonkaa loo sidaa waa saddex diiwaanun laa yacba'u allahu bihi shay-an wa diiwaanun laa yatrukuhu allahu minhu shay-a wa diiwaanun laa yakfiruhu allah diiwaan aan ilaahay waaba yeelin iyo diiwaan aan waxba lagaaga tegaynin iyo diiwaan aan isaga laguba dembi dhaafaynin diiwaan aan lagu dembi dhaafaynin waa haddaad gaalnimo ku dhacday oo kaa ilaahay ma dhaafo gaalnimada innahu man yushrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi aljanna qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala u shirig yeela ee dulmiga noocaasa ku dhaca ilaahay subxaanahu wa tacaala janno wuu ka xaaraam yeelay diiwaanka aan ilaahay u aabba yeelaynin laa yacba'u bihi waa wixii adigiyo rabbigaa idin dhexeeya ee macaasiyaad ku dhacday in shaaa cadab wa in shaaa gafar ilaahay waa kaa dhaafi kara subxaanahu wa tacaala diiwaanna lagaaga tegi maayo waa dulmu lcibaadi bacduhum libacd waa addoommuhu dulmiga iyagu isdulmiyeenee badhba badhka kale uu dulmiyey waa laa budda min qisaasin isagu waa lagu qisaasayaa laa maxaala sinaba lagaaga tegi maayo aakhiro waa lagu soo taagayaa waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka kale ku leh man kaanat cindahu madlama liakhiihi falyataxallalhu minha waxaan rajaynaya inuu bukhaari ku yaalla kan kale kii hore imaamu axmed iyo xaakim iyo keyrkii baa wariyey culamada badhna ciraaqi ay ka mid yihiin waa tasxiixinayaan
waxau nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka walaalkii dulmi ka galay wara ka xalaal dalbo yacni toobadda dunuubta inaad ka toobad keento ilaahay toobadda wuu aqbalaa laakiin haddii dembigu ahaa dembi aad bini aadam ka gashay waxaa waajib kugu ah inaad samayso inaad ka xalaalmi weydiisato inuu ku cafiyo waayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalin baad imanaysaa aan dirham iyo diinaar toona jirin oo qofka waxa uu kaa guraya ay tahay xasanaadkaagii wixii aad shaqaysatay uu kaa gurayo haddii aanad xasanaad haysan oo ay kaa dhammaatana lagugu bedelayo sayi-aadkoodii in dusha lagaa saaro idan ikhwatii fi lcaqiida suwaru dulm waa saddexdaa qaybood bay culammadu u qaybiyaan qayb aan ilaahay dhaafaynoo gaalnimo ah iyo qayb lagaa qaadi doonaan lagaaga tegaynin oo addoommaha wixii aad u geysatay ah iyo qayb rabbi subxaanahu wa tacaala aanu aaba yeelin oo uu kaa dhaafayo insaankuna sidiisaba min tabcihi bay ka mid tahay inuu wax dulmiyo ilaahay ba qur-aanka wuxuu ku leeyay wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha ina alinsaana la daluumun kafaar haddaa ilaahay nimcooyinkiisa tirisaan soo koobi kari maysaan baa rabbi leeyahy subxaanahu wa tacaala bini aadamku sidiisii u yahay baa ilaahay yidhi daluum mid dulmi badana ah oo gaalnimo badan ayuu bini aadamku sidiisa yahay innahu kaana daluuman jahuula aayad kale waa kii ilaahay ku sifaynayay insaanku min tabcihi ayaanu cidba waxu ogolayn laakiin islaamnimadu waxay u soo degtay in tamaacnimada inta lagugu itixaamo la eego bal inta aad qabsoonto iyo intaad qabsoomi weydo islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan markaasi oo ilaahayba kitaabka u soo dejiyey in cadaalad lagu dhaqmo oo qofku uu naftiisa kontarooli karo suwaru dulmina waa qowl iyo ficilba way noqdaan si kale haddaynu u qaybino qowl way noqdaanoo waxaynu maanta tilmaamaynay ee cay iyo xan iyo namiimo iyo sukhriyo iyo buhtaan iyo qadfi iyo waxaasoo dhammi afxumo ee af ka soo baxoo dhamme waa dulmi ayay noqon karaan qaybina waa ficil oo waa dil iyo boob iyo dhac iyo zine iyo khamri cab iyo waxa la halmaalo oo dhammi iyana waa dulmi kale qofka mu'minkaa waxaa laga rabaa waxay tahay markaasi inuu dhowrsoonaado nabi muxamedna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ittaquu dacwata almadluumi wain kaana kaafira fainahu laysa duunaha xijaaba war daalimka madluumka dacwadiisa iska ilaaliya xataa gaalna ha noqda iska jir baa la leeyahay ilaahay inuu kuu baryo qof bini aadam oo aad dulmiday khatar weeyaan waxaynu u gudbi markaa haddaba